بسم الله الرحمن الرحيم خميس وناسان صاحب يال داوديال كسو دوادا warbixinadeena ee alaaba suuqa kale iibsiga ciyaartoyda qaarada Yurub qodobada ugu waaweyn waxa kamid ah kabtankii Liverpool Jordan Henderson ayaa 12 sano kadib isaga dhaqaaqay kooxda kubadda cagta ee Reds 33 sano jirkan ayaa aad loo xiriiriyay horyaalka wadanka Sacuudi Carabiya iyo kooxda kubadda cagta Al Ittifaq toddobaadii ugu dambeysay macalinkiisa cusub kabtankii oo ka dhaxlay Liverpool Steven Gerrard ayaana kooxdaasi jooga sida darteed ciyaaryahankan caalamiga ee wadanka Ingiriiska ayaa 12 sano uu joogay Liverpool kula guuleysay koob fara badan horyaalka Premier League iyo Champions League sidoo kalena waxa uu qaaday marka la fiiriyo abaalmarino kala duwan oo kooxda kubadda cagta Liverpool oo kula guuleysay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ciyaaryahankooda qadka dhexe ee Marco Verratti ayaa isagana Sacuudi Carabiya aadi doona kooxda Al Hilal ciyaaryahan Verratti ayaa aad loo xiriiriyay magaciisa sidoo kalena Karim Benzema N'Golo Kante iyo Roberto Firmino ayuu kula biiri doona ciyaaryahanka isku kooxda yihiin PSG Kylian Mbappe isagana aad ayuu la xiriiriyay laakiin waxa uu leeyahay aniga kama ciyaarayo bariga dhexe PSG-na waxay aqbashay dalab rikoor oo 390 milyan ciyaaryahankan wadanka Talyaaniga ee 30 jirka ah horyaalka Sacuudi Carabiya kooxda Al Nassr kulankii saaxiibtinimo ee ka dhacay magaalada Osaka ee wadanka Japan talaadii la soo dhaafay ay maamulka wada hadleen Fabrizio Romano oo suuqa kale iibsiga caan ku ah wuxuu leeyahay PSG iyo ciyaaryahankanba way kala dhaqaaqi doonaan 12 sano ayuu joogo kooxda kubadda cagta ee Paris koob badan ayuu kula guuleysay Marco Verratti Jorginho Nicolo Barella waa ciyaartooyda qadka dhexe ee xulka qaranka wadanka Talyaaniga laakiin Sacuudi Carabiya ciyaaryahankii soo wacdaaba fadhi uma yaalo oo waxaad moodaa in ay aad iyo aad ay u daneynayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa la soo warinaya in Real Madrid ka dalbatay inay la soo wareegaan daafaca David Alaba ciyaaryahankan caalamiga wadanka Austria ayaa Bernabeu yimid 2021 waxaana uu saftay 85 kulan 31 jirkan ayaa Carlo Ancelotti dooqa koowaad u ah 39 kulan ayuu dhammaan tartamada dhan u saftay horyaalka wadanka Spain ee La Liga sidoo kalena ciyaaryahankan dhaawacyo ay waqtigiisa ku qaatay ciyaaryahankan Alaba Bernabeu marka la fidiyay wuxuu kula jiray heshiis 2026 in National waxay leedahay Man United aad ay u xiiseynaysaa Den Hag inuu la shaqeeyo ninkan Antonio Rudiger Idris Milato ayaa daafac dhexe si joogto ah u dheela Carlo Ancelotti iyo maamulkiisa waa laga yaabaa inay dhageystaan dalabaadka ka imaanaya ciyaaryahankan Juventus waxay rabtaa inay Chelsea kala hadasho macquul ahaanshaha weeraryahankooda reer Belgium Romelu Lukaku macalinka Luis Mauricio Pochettino wuxuu u sheegay ninkan caalamiga wadanka Belgiumka in koox kale uu raadsado Inter Milan si cad ay u sheegtay inaan Lukaku la wareegi karin isagana wuu diiday inuu Sacuudi Carabiya aado ciyaaryahankan Lukaku Chelsea wuxuu ugu soo laabtay 97.5 milyan laakiin lacag qasaartay weeyaan 15 gool dhaliyay 44 kulan oo Premier League uu ciyaaray San Siro ayuu ku laabtay ninkan weeraryahanka ah 37 kulan oo Inter Milan u saftay 14 gool dhaliyay sidoo kale 7 gool uu caawiyay inkastoo dhaleecin fara badan oo kala kulmay khasaaradii finalkii Champions League ee xil ciyaareedkan Istanbul ka dhacday oo ciyaaryahanka la sheegay inuu qayb ka ahaa guuldaradii Inter Milan Manchester United ayaa dalab saddexaad oo 42.8 milyan oo gani oo lagu daray 10 milyan oo lacagta gunooyinka ah dib ugu laaban doonta Atlanta weeraryahankooda 20 jirka ee Denmark Rasmus Højlund The Athletic ayaa qortay dhanka kalena wararka kale ee suuqa kale iibsiga waxaa kamid ah Juventus madaxooda directorka Cristiano Giuliani wuxuu u safri doonaa Ingiriiska si ay ugu wada hadlaan arinta ciyaaryahanka reer Belgium ee lagu magacaabo Lukaku dhanka kalena wararka kale waxaa kamid ah maanta kooxda kubadda cagta ee Chelsea way beenisay wararka 29 jirka kooxda Roma Paulo Dybala la xiriiriyay inkastoo wili aanu war cad oo rasmi ah aanu ahayn arintan kooxda kubadda cagta Aston Villa waxay u dhawaaday heshiiska ciyaaryahanka Tottenham Giovanni Lo Celso 30 jirkan hore wuxuu ugu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Sevilla waaka marka Everton 26 jirkooda weerarka ugu ciyaaray ninka lagu magacaabo Dominic Calvert-Lewin heshiiska ay u kordhiyeen maanta wararkeena suuqa kale iibsiga waa naginta